Mechanical engineering, injineernimada makaanikada maxay tahay? Fiiryahan ama casharkan waxaan kaga jawaabi doonaa su-aashaas. Waxaa idiin soo diyaariyay anigoo ah injineer Cabdiwahaab Somtronics. Casharkii hore waxaan kaga hadalnay electrical engineering. Marka kor ayaan kusoo dejin doonaa haddii aadan fiirsan fiiryahaas. Marka fiirso fiiryahaas. Casharkan ama qaybtan waxaan kaga hadli doonaa waxa la yiraahdo mechanical engineering. Insha Allah future-ka hadba sidii la iiga soo codsado dhalinyarada ku xiran channelkayga waa electronics engineering, computer science, software, civil, chemical and biomedical waan ka hadli doonaa insha Allah. Waxay ku xiran tahay hadba commenteska hoos aad kusoo qortaan sida iiga codsataan iyo waxa adinka aad interested ku tihiin rabtaan inaad barataan. Insha Allah anigana waxaan try gareynayaa inaan soo diyaariyo. qaybtan waxaan kaga hadlaynaa mechanical engineering. Injineernimada makaanikada marku maxay tahay? Micnaheedu muxuu yahay? Mechanical engineering micnaheedu waxay tahay design, analysis and manufacturing of mechanical system. Qofka inuu design gareeyo, analyze gareeyo, markaasna uu warshadeeyo ama naqshadeynta, falanqaynta iyo soo saarista nidaam ku dhisan farsamada mashiinada iyo warshadeyntooda. Marka qofka mechanical engineering ama cilmiga mechanical engineering wax kale ma aha, waa wax kasto oo la warshadeeyo oo la design gareeyo oo markaas mass production ama dadka ay gataan ama ay isticmaalaan ayaa waxaa la yiraahdaa mechanical engineering. Marka qofkaas waxa uu baranayaa waxaas. Musbaarka ugu yar oo baabuurka iyo baabuurka korkiisa baariga waxaa ka soo shaqeeyo dad bartay mechanical engineering. Marka wax kasta oo baabuurkaas musbaarka ugu yar waxa uu ku dhisan yahay wax la yiraahdo mechanical engineering. Sidoo kale diyaaradda baarigeeda, injinadeeda, waxaasoo dhan waxa ay ku dhisan yihiin mechanical engineering. Waxaa jiro qaybo ka mid ah diyaaradda ama baabuurka ama wax kasta oo mechanical ah oo ay geli karto electronics ama electrical uu geli karo. qaybahaasna waxaa ka soo shaqeeyo marka dadka electrical engineering. Marka shirkadaha badi waxay qabaan dad bartay mechanical engineering oo just ku takhasusay sidii u sameyn lahaa wixii mashiinada la gelin lahaa ayay ka shaqeeyaan. qaybna waxay ka shaqeeyaan wixii electrical ama electronics ah inay ka shaqeeyaan. waxay kaloo ka shaqeeyaan buundooyinka dhismaheeda iyo designkeeda ayay ka shaqeeyaan. ama cilmigaas ayaa lagu bartaa oo bridge engineer waxa la dhaho ayaa jiro. Marka su-aasha marka waxay tahay maxay ku dhisan tahay mechanical engineering? Qofka raba inuu barto mechanical engineering muxuu u baahan yahay inuu ku fiicnaado? Wuxuu u baahan yahay inuu ku fiican yahay xisaab, qayb ahaan waxa la yiraahdo calculuska. waxa uu kaloo u baahan yahay inuu ku fiican yahay physics. Marka mechanical engineering cilmiga wuxuu ku dhisan yahay calculus, xisaab iyo physics ayuu ku dhisan yahay. iskoolka qofka markuu aadayo waxaas ayuu baranaya. insha Allah qaybta dambe ayaan idinku tusi doonaa koorsooyinka iyo waxaad u baahan tahay inaad qaadato. su-aasha kale marka waxay tahay maxay ka shaqeeyaan? ninka bartay mechanical engineering shaqooyinkuu qabtaa. Marka waxay ku xiran tahay hadba wadanka aad joogto, laakiin general ahaan dadka barto mechanical engineering oo wadamada hore u maray ka soo qaad, iban xataa wadamada Africa, inta aan ka hadli doono waa inta ugu maaragtay caansan oo dadku ay qabtaan. waxaa ka mid ah dadka bartay baabuurta ama waxaa la yiraahdaa automotive engineering. waxay design gareeyaan baabuurka bilowgiisa meesha ugu hooseyso ilaa baabuurkaas uu complete uu ka noqdo ayagoo isticmaalayo computer aided design wax la yiraahdo ama CAD la yiraahdo, kaas oo awood u siinayo inay ku design gareeyaan hadba baabuurka ama diyaaradda waxaadba ay ka shaqeynayaan ay ku simulation ay ku sameeyaan si ay ogaadaan calculationkiisa iyo sidii maaragtay u shaqeyn doono ayagoo isticmaali doono systemkaas. markay ay dhameeyaanna waxay sameeyaan wax la yiraahdo testing. marka waxay dhisayaan ama prototyping wax la yiraahdo, waxay dhisayaan wixii hadba ay designka ay ku sameeyeen computerka ayay waxay dhisayaan asagoo oo prototype ama asagoo tusaale ahaan ah. markaana waxay sameeyaan way test gareynayaan, waxay ogaanayaan hawada siduu u qaadan karo, waxay test gareynayaan siduu kuleelka u xamili karo, waxay test siduu u ordi karo. waxaasoo dhan ayay ka shaqeeyaan. waxay kaloo ka shaqeeyaan waxa la yiraahdo injinka, baabuurta injinkooda, diyaaradaha injinkooda, wax kasta oo mechanical ah oo energy create gareynayo waxaa shaqo ku leh qof bartay mechanical engineering.
waxay kaloo ka shaqeeyaan dhismaha guryaha oo kale oo ama saraha waaweyn oo dhaadheer oo kulli ku dhisan mechanical ama bir ama wax ku taagan wayna ka shaqeeyaan. dadka mechanical engineeringka bartay waxay kaloo ka shaqeeyaan wax la yidhaahdo buundooyinka ama dhismaha buundooyinka oo loo yaqaano bridge engineer. bridge engineer waxay also soo hoos gashaa civil engineeringka ayay soo hoos gashaa, maadaama loo baahan yahay qof mechanical engineering bartay. sababtuna ay tahay maadaama buundadii ay dhaqdhaqaaqi karto ama biro ay ka samaysan tahay, birahaas oo markii kuleel dhaco iyo markii qabow dhaco isbedeli karo siday u shaqeeyaan, waxaa loo baahan yahay qof bartay mechanical engineer. qofkaas oo design gareyn doono bridgekaas inta quwad ama pressure ay qaadi karto markii ay baabuurta ama xamuulka uu ku socdo, markii dhul gariir uu dhaco inta quwad ay qaadi karto, markii hawo ama vibration uu dhaco sida ay u xamili karto. waxaasoo dhan ayay design gareeyaan ay ka shaqeeyaan. markay dhammaystiraan designkana buundadii ayay dhisaan. qofka bartay mechanical engineeringka waxa uu ka shaqeeyaa waxa la yidhaahdo HVAC waxa la yidhaahdo ama heating ventilation and air condition, kaasoo ah kuleelka qabowga iyo hawada sida ay u dhaqdhaqaaqdo guryaha ama warshadaha. qofka waxa uu bartaa sida u design gareyn lahaa air conditionada qaybta special mechanicalka ah oo ay ka mid yihiin fanka, ay ka mid yihiin compressorska, ay ka mid yihiin condenserska. waxaasoo dhan ayay ka shaqeeyaan. waxay kaloo markii ay sameeyaan designka ay dhammaystiraan waxay kaloo ay waadaan hawada siday u mari karto meesha ay buildingkaas ama gurigaas, si hawadaas dhaqdhaqaaqeeda ay u ogaadaan, qabowgeeda, kuleelkeeda. waxaasoo dhan ayay ka shaqeeyaan dadkaa bartay mechanical engineering qaybta weliba ku takhasusay HVAC-ga. qofka ka bartay mechanical engineering also wuxuu bartay ama ka shaqeeyaa waxa la yidhaahdo aerospace ama diyaaradaha, kuwaas oo design gareeyo diyaaradaha, rocketka, structurekooda, waxaasoo dhan. markay dhammaystiraana diyaaraddaas testingkeeda iyo siday u qaadan karto hawada, sidii maaragtay vibrationka, waxaasoo dhan ay uga adkeysan karto ayay ka shaqeeyaan ayadana. qofka bartay mechanical engineering wuxuu kaloo isku dirsan karaa waxa la yidhahdo electronics iyo mechanics. dadkana waxaa loo yaqaanaa mechatronics. marka wuxuu qaadanayaa half electronics ah iyo half mechanical. dadkaas shaqadooda waxay u badan tahay waxa la yidhaahdo robotiska. robotiskaas oo laga isticmaalo warshadaha wadamada horumaray oo dhan, kuwaas oo dhiso baabuurta, alaabaha, wax kasta oo maaragtay warshadaas ay u baahan tahay. waxaa loo yaqaana automation system ama robot systemkaas oo shaqadooda ay tahay inay warshadaas completely ayaga ay dhisaan waxa oo maaragtay markaas warshadaas ay dhisayso. waxay kaloo dadkaas ay bartaan dadka mechatronicska bartay sida loo program gareyn lahaa computerkaas ama robotkaas, sidii maaragtay hadba uu shaqadii u qaban lahaa. dadka barta mechanical engineeringka waxay also ka shaqeeyaan qaybta loo yaqaano energy-ga ama tamarta. waxay ka shaqeeyaan sidii loo warshadeyn lahaa solar panelska. mechanical engineerskaas ayaa design gareeyo structureka solar panelkaas ay ka mid yihiin aluminiumka, ay ka mid yihiin dhalooyinka ku jira gudaha ama galaaska. waxay ka mid tahay also waxa loo yaqaano warqadaha gadaal kaga xiran. xataa waxay ka shaqeeyaan junction boxka. marka warshadeynta solar panelka sidii lagu soo saari lahaa ayadoo solar panel complete ah waxaa kasoo shaqeeya dadka bartay mechanical engineering. waxaa kaloo ay ka shaqeeyaan waxa loo yaqaano wind turbines, kuwa noo soo saaro tamarta hawada ku dhisan. markaad fiiriso wind turbineka gudihiisa, markaad fiiriso waxaad ku arkaysaa waxyaalo badan oo mechanical ku shaqeeyo. waxaa ka mid ah bladeska waxa loo yaqaano ama baalashooda, siday hawada u qaadan lahayn, siday u wareegi lahaayeen. waxaasoo dhan waxaa ka shaqeeya dadka bartay mechanical engineering. waxaa ka mid ah waxa loo yaqaano gearboxka, waxaa ka mid ah generatorka. waxaasoo dhan waxaa kasoo shaqeeyay dadkaa bartay mechanical engineering. su-aasha kale aan rabno inaan ka jawaabno waxay tahay mechanical engineeringka qofka raba inuu barto maadooyinkee aasaas u ah. What are the basic subjects for mechanical engineering? What courses I need in my high school education? maadooyinkee aan u baahnahay inaan qaato markaan dugsiga sare aadayo? waa su-aal aada u fiican. waxaa kaloo qofka markuu dhiganayo intermediate-ka ama dugsiga dhexe uu dhiganayo wuxuu u baahan yahay inuu qaato maadooyinka ay ka mid yihiin xisaabta, maadaama mechanical engineeringka xisaabtu ay u tahay rukun. algebra 1, algebra 2
waa important qofka inuu ku fiican yahay uuna soo qaataa. Geometry iyo trigonometryna ayadana waa important waayo inuu soo qaato. haddii awoodda uu leeyahay inuu sii qaato calculus waxa loo yaqaano pre-calculus oo calculus ka horeyso, iyo calculuska nafteeda hadduu soo qaato one uu kusoo qaato high schoolka ama isagoo isbaro, ayadana way u fududeyn doontaa markuu aadayo jaamacadda. waxa uu kaloo u baahan yahay physics. Math iyo physics wuxuu rukun u yahay mechanical engineeringka. Chemistryna koorsooyin oo u baahan yahay high schoolka inuu kusoo qaato. tan kaloo importantiga waxa uu qofku waa inuu Englishka uu akhrin karaa, qori karaa ama fahmi karaa. Read, write and understand English, maadaama buugaagta ugu fiican oo mechanical engineeringka lagu qoro ay ku qoran yihiin English. marka taana wuxuu u fududeynaysaa cilmigiisa inuu sii kordhsado. maxay ku kala duwan yihiin jaamacadda iyo college-ka? qaybtii hore oo electrical engineering ayaan kaga hadlay, maadaama haddaadan fiirsan qaybtaas, tan waan kuusoo kaabayaa waxay ku kala duwan yihiin. college-ka waa 2 sano ilaa 4 sano. waxaanu qaataa qofka 2 sano dhameeyo wax la yiraahdo associate degree, qofka 4 qaatana wuxuu qaataa bachelor degree. jaamacadda qofka aqoon sare ayuu aadi karaa, wuxuu ku qaadan karaa BS, masters iyo PhD. marka labada taa ayay ku kala duwan yihiin. konton koowaad. tan labaad, ardayda cabirkeeda waa yar yahay oo ilaa galaaskiiba waxaa qaadan karo ilaa 30 qof. jaamacadda galaaska arday badan ayaa qaadan karto halkii galaas oo ilaa 200 qof ayaa laga yaabaa inay galaaskaas ay soo fadhiistaan. college-ka waxay qabaan tababar gooni ah oo qofka farsamada gacanta uu ku baran karo oo 1 sano 2 sano uu ku qaadan karo, oo hataa waxaa jirto koorsooyin associate degree oo mechanical engineering ah oo qofka uu ku qaadan karo jaamacadda oo la bari karo farsamada baabuurta, farsamada air conditionada 2 sano oo hadhow uu qofkii uu ku shaqeyn karo asagoo ah technician ku shaqeyn karo. jaamacadda qofka wuxuu aadi karaa research ayuu aadi karaa oo wuxuu ka qayb geli karaa soo saaridda cilmiga ama kordhinta cilmiga researchka ama macallin ayuu noqon karaa. marka su-aasha waxay tahay mechanical engineeringka maadooyinkee aasaas oo ah? tan waa markaa jaamacadda aad aadayso. qofka markuu jaamacadda aadayo wuxuu qaadanayaa oo laga rabaa math, calculus 1, calculus 2, calculus 3 iyo wax la yiraahdo elementary linear algebra iyo introduction to differential equation. marka xisaabahaas ayaa uu ku qaadan doonaa markuu aadayo jaamacadda uuna baranayo mechanical engineering. waxa uu kaloo qaadan doonaa physics 1, physics 2 ayuu ku qaadan doonaa. physics 1 sidaa la socotaan waxa uu ku saabsan yahay mechanicska waxa la yiraahdo, waxa dhaqdhaqaaqo iyo waxa statica oo taagan. waxa uu ku qaadan doonaa motionka oo 1 dimension ah oo physics 1 ka qaybtiisa. wuxuu qaadan doonaa vectorska, wuxuu qaadan karaa forceka, quwadda iyo motionkeeda, Newton's law. wuxuu qaadan doonaa frictionka, waxa markii friction ay ku dhacaan siday u socdaan, kinetic energy iyo work iyo tamarta, waxaasoo dhan ayuu ku qaadan doonaa physics 1. physics 2 wuxuu ku qaadan doonaa fluidska ah sida biyaha ama oilka u dhaqdhaqaaqdo, thermodynamics waxa la yiraahdo oo ayadana ku saabsan kuleelka iyo qabowga siday wax u gaarsiiyaan materialska ama birta ama waxa rabta ha noqoto. wuxuu qaadan doonaa little bit electricity oo ka mid ah electric charge, field and potential. wuxuu qaadan doonaa circuitska ay ka mid yihiin series, parallel, waxyaalahaas oo kale. waxa uu asana qaas ahaan qaadan doonaa soundka iyo vibrationka sida u affect gareeyo materialska. wuxuu qaadan doonaa magnetic force, magnetic field and Faraday's law, electromagnetic fields and interference iyo opticska iyo quantum physicska wax la yiraahdo. marka wuxuu qaadan doonaa kan waa 2 galaas ugu horeeya oo uu qaadan doona 2 sano ugu horeyso. wuxuu kaloo qaadan doonaa chemistryga koowaad iyo laabkiisa, chemistryga labaad iyo laabkiisa. waxa uu qaadan doonaa engineering ku qaadan doonaa sanadka labaad dhamaadkiisa. wuxuu qaadan doonaa wax la yiraahdo computer aided engineering ama computer aided design wax la yiraahdo, oo uu ku baran doono sida biraha loo design gareeyo, sida masaamiirta, sida wax kasta oo u baahan in manufacturing lagu sameeyo, sida u design gareyn lahayd asagoo isticmaali doono computer program. waxa uu kaloo qaadan doonaa wax la yiraahdo MATLAB, programming ku dhisan, xisaab ku dhisan oo aad loo qaato. waxa uu ku qaadan doonaa qaybta mechanicska ayuu ku qaadan doonaa sida uu u design gareyn lahaa ama xisaabta uu isticmaali lahaa, uu ku design gareyn lahaa wax mechanical partska ah. misalan wuxuu design gareyn doonaa sida hawada ama kuleelka ama qabowga
uu u maaragtay u dhaawaco shaygaas. wuxuu kaloo ku qaadan doonaa vibrationka markii ay ku dhacaan shayga sida uu u shaqaynayo. waxa uu kaloo qaadan doonaa wax la yihahdo simulation oo ku dhisan wax la yihahdo Simulink oo ka mid ah MATLAB programkaas oo asagana uu ku design garayn doono control systemka iyo feedback systemka waxyaalahaas oo kale. waxa uu kaloo xoogaa yar ka qaadan doonaa 2 sano ugu horeysa. waxaa lagu soo dhaweynayaa waxa la yihahdo engineeringka special electricalka. wuxuu qaadan doonaa resistorska, capacitorska, inductorska, circuitska oo ka mid ah RLC, resistor iyo inductor iyo capacitance. waxaas ayuu ku qaadan doonaa sanadka ugu horeysa. qofka aadi doono mechatronics aadi doono ama mechanical iyo electronics isku jiro aadi doono oo ka shaqeyn doono robotska waxa la yihahdo wuxuu lagu soo dhaweyn doonaa waxa la yihahdo deviceska oo electronics, transistorska, diodeska, thyristorska, MOSFETka, JFETka, waxaasoo dhan ayaa lagu soo dhaweynayaa si uu u fahmo deviceskaas. waxa uu kaloo qaadan doonaa computer microcontrollers wax ku dhisan ay ka mid yihiin Arduino sida u program garayn lahay programkiisa ama IDE-giisa. waxaas dhan ayaa lagu soo dhaweynayaa qofkaas baran doono. halfna qaadan doono, nus qaadan doono electronics, nuska kala qaadan doono mechanicalka oo loo yaqaano mechatronics. waxaa kaloo qofka uu baran doonaa waxa la yihahdo mechanics of particles and rigid bodies. rigid bodies waa waxyaalaha kakan ama birta ka samaysan oo aanan dhaqdhaqaaqin. misalama buundada oo kale. buundada markii qofka uu design gareeyo wuxuu fahmi doonaa forceka riixi doono markii uu culeys uu koro, hawada sida u dhaawacdo, vibrationka, earthquakeska markii dhulka uu gariiro, waxaasoo dhan forceka uu qaadi karo. waxaasoo dhan ayuu ku baran doonaa qaybtan. waxaana loo yaqaanaa statics, macnaha waxyaalaha aan dhaqdhaqaaqin. rigid bodies wuxuu noqonayaa xajmiga ishaysto. waxa uu kaloo qaadan doonaa qaybta kale waxa loo yaqaano rigid bodies 1 ama ay ka mid yihiin dynamics. dynamicskana waxa waaye waxa dhaqdhaqaaqo ay ka mid yihiin biraha, baabuurta, mechanic robotska. waxaasoo dhan waxa ay ku dhisan yihiin body in motion wax la yihahdo, xajmiga ama baariga dhaqdhaqaaqo. waxa uu kaloo ku qaadan doonaa sida uu u fahmi lahaa sida angleska, rotationka iyo waxaas ay u shaqeeyaan, rollka, yawga ama pitchka. waxaasoo dhan isagoo isticmaali doona xisaabo kulligood ku dhisan physics. waxa uu kaloo qaadan doona waxa la yihahdo fluid mechanics oo ay ka mid yihiin biyaha iyo hawada iyo sida ay u dhaqdhaqaaqaan. wuxuu design garoon doonaa tuubooyinka sida biyaha u maraan ama oilka uu u maro, sizekeeda, pressureka kori karo. waxaasoo dhan ayuu calculate garayn doonaa. wuxuu kaloo also ku qaadan doonaa sida loo simulate gareeyo hawada sida u maaragtay u dhaawacdo ama u affect garayso baadiga ama quwadda misalan baalasha diyaaradda oo kale. hawada sida ay maaragtay u marto, sida u dhaawacdo, sida u qaado. waxyaalahaasoo dhan ayuu ku qaadanayaa insha allah fluid mechanicska. waxa uu kaloo qaadan doona waxa la yihahdo friction and wear. misalanba marka aad riixayso shay aad riixdo, dhulka aad ku riixdo, dhulka waxa uu leeyahay waxa la yihahdo friction. frictionka wax kale ma aha, waa force that opposes the motion of moving object. waa waxa ka hor yimaado markii waxa aad riixayso ku diida inaa wixii aad riixdo ayaa la yihahdaa friction. marka waxaa baranaysaa frictionka oo statica ah, waxa aanan dhaqaaqin, iyo waxaa baranaysaa kinetic midka ah, midka move garaynayo. misalanba shay markuu uu saaran yahay meel slope ah oo hoos u dhaqaaqayo, frictionka effect garayn karo. waxaa qaadanaysaa forceka riixi karo, anglekeeda. waxaasoo dhan ayaa waxaad ku qaadan doontaa courskaas loo yaqaano friction and wear. su-aasha marka waxay tahay manhajka oo Bachelor of Science ee Mechanical Engineering ama 4 sano curriculumkeeda muxuu yahay. marka jaamacadaha qaarkood koorsooyinka sida ay u dhigaan waxaa laga yaabaa wax yar inay kala duwan yihiin. waxa meesha idin ku tusi doono general ahaan jaamacadaha inta badan koorsooyinka ay dhigaan ayaan kusoo qaadanaya. sanadka koowaad iyo sanadka labaad qofka wuxuu qaadanayaa sida engineeringka kale ama electrical ha aado ama computer ha aado. wuxuu qaadan doonaa koorsooyinka ee halkan ku yaallo mathka calculus 1 ilaa calculus 3. linear algebra ayuu qaadanayaa qofka mechanicalka aadayo. waxaa kaloo qaadan doonaa physics 1 and 2, chemistry 1 and 2. waxa uu qaadan doonaa circuits 1 and 2 ayuu qaadan doonaa oo lagu soo dhaweyn doono electrical engineering 2 sano ugu horeysa. waxa uu qaadan doonaa wax loo yaqaano MATLAB programming oo hadda aan ka soo hadlay.
waxa uu kanu qaadan doonaa wax la yihahdo computer aided design engineering oo ku design garayn doono structureka biraha iyo waxaas oo kale. waxa uu kaloo qaadan doonaa elective courses ay ku jiraan English 1 and 2, technical writing sida aad u qori lahayd warqadaha technicalka ah, iyo other electives. marka waxay ku xiran tahay iskoolka electiveskiis. qaarkood waxay qaataan diinta, qaar waxay qaataan history, waxyaala saas oo kale ah electiveskaas. sanadka saddexaad qofka waxa uu qaadanaya mechanics iyo xisaab tiro badan. wuxuu qaadanaya sida hore usoo sheegay mechanics of particles oo rigid bodies 1 oo statics ah. wuxuu qaadan doonaa mechanics of particles of rigid bodies of 2 ah. wuxuu qaadan doonaa dynamicska ayuu qaadan doonaa. wuxuu qaadan doonaa mechanics of material sida u dhisan yihiin waxa materialka waxyaalaha. waxaa lagu soo dhaweyn doonaa thermodynamics, introduction to thermodynamics oo ay ka mid yihiin kuleelka qabowga, waxyaala saas oo kale ah. waxuu qaadan doonaa advance xisaabo sarsare oo engineerinka loogu talagalay oo iyo qaadan doona. wuxuu kaloo qaadan doonaa mechanicski structureka sida loo design gareeyo. wuxuu qaadan doonaa fluid system, biyaha oilka sida u dhaqdhaqaaqaan. wuxuu qaadan doonaa probability and statisticska, qeyb ka mid ah statisticska iyo probability oo important ah inaad aad fahamto. waxa uu kaloo qaadan doonaa propertieska materialka sida u samaysan yihiin, sida u design gareyn lahaa mechanicalka. wuxuu qaadan doonaa dynamics and control 1 feedback systemka iyo waxyaalahaas ay u shaqeeyaan. wuxuu qaadan doonaa class kale oo ayadana computer aided design engineering 2 ah. markii hore wuxuu qaatay 1, wuxuu kusoo qaatay halkan sanadka koowaad. sanadka saddexaad wuxuu qaadan doonaa isagoo heer sare ah. wuxuu qaadan doonaa heat transfer sida heatka uu u gudbo. sanadka afraad qofka wuxuu qaadan doonaa koorsooyin aad u sareeyo oo ay ka mid yihiin engineering, mechanical engineering design 1. wuxuu qaaday system dynamics 2 oo controlka ah. sanadka saddexaad wuxuu kusoo qaatay system dynamic control 1. kan afraad wuxuu system dynamic control 2 ayuu qaadan doonaa. wuxuu qaadan doonaa machineka sida loo design gareeyo, energy systemska sida u shaqeeyaan sidaan kaga soo hadlo turbine engineka iyo solar systemka, waxyaalahaas oo dhan ayuu halkan ku qaadan doonaa. wuxuu kala baran doonaa design and material and manufacturing sida wixii loo design gareyn lahaa, materialkii oo manufacture loogu sameyn lahaa, ayadana waa uu baranaya. marka intaa koorsooyin uu dhameeyo qofka iyo koorsooyin kale oo halkan aanu kusoo qoro oo laga yaabaa jaamacadaha qaarkood ay dhigaan, waxaa laga yaabaa inuu qofkaas markan uu sameeyo concentration. maadaama aan dhahay qofka mechanical engineering wuxuu ka shaqeyn karaa waxyaalo badan oo ay ka mid yihiin automotive-ka iyo robots waxaas oo dhan. curriculumka qofka marka hadduu rabo inuu kusii takhasuso wax gooni ah, masalama qofka raba inuu barto automation and roboticska marka aan ku magacaabay oo lagu magacaabay mechatronicska, wuxuu qaadanaya koorsooyin badan oo ku saabsan roboticska iyo electronicska, waxyaala saas oo kale ah. qofka raba inuu automotive aado wuxuu qaadan doonaa automotive engineering design. wuxuu qaadan doonaa manufacturing. qofka raba inuu aado wuxuu qaadan doonaa koorsooyin ku saabsan manufacturing. qofka raba inuu barto sida waxyaalaha loo design gareeyo ama sida u samaysan yihiin wuxuu qaadan doonaa mechanics of material. dadka raba inay bartaan waxyaalaha yaryarka ay ka mid yihiin saacadaha iyo nano iyo waxyaalaha yaryarka ah, asana wuxuu qaadan doonaa koorsooyin ku saabsan micro and nano engineering. qofka raba inuu aado nuclear engineering inuu aadana wuxuu qaadanaya koorsooyin ku saabsan nuclear energy. qofka raba keliya inuu ku takhasuso thermalka, fluidka iyo energygana isagana wuxuu qaadan doonaa koorsooyinkaas. qofka raba inuu noqdo khabiir, uu mechanical engineering ku noqdo khabiir, kaasna wuxuu aadi karaa master of science oo engineering ah, wuxuuna qaadanayaa MSE wax la yiraahdo. marka intaas waa generalka koorsooyinka qofka uu baahan yahay. waxayna u badan yihiin kulli koorsooyinka dhan ay u badan yihiin math iyo physics. waxaan rabaa inaan idinku tusaaleeyo waxay ku kala duwan yihiin mechanical engineering iyo electrical engineering. qofka mechanical engineeringka aadayo wuxuu qaadanayaa xisaab iyo physics tiro badan. qofka aadayo electrical engineeringka waa xisaabtiisu waa yartahay oo calculus 1 ilaa 3 iyo wuxuu qaadanayaa physicska 2 sano hore. inta u badan wuxuu qaadanayaa koorsooyin ku saabsan sida wax loo design gareeyo oo electrical circuit designs ah ayuu qaadanayaa inta badan markuu aadayo sanadka saddexaad iyo sanadka afraad. qofka raba inuu barto engineering mechanicska badi gacanta ayuu wax kaga shaqeynaya oo yacni waxaa laga yaabaa mashiinkii inuu tago oo wixii intuu design gareeyo uu test gareeyo. waxaa laga yaabaa inuu gacanta la galo. marka gacanta ayay u badan tahay qofkaas markii uu design gareeyo inuu gacanta ku shaqeeyo.
qofka barto electrical engineeringka badi waxaa laga yaabaa inuu design gareeyo uu laabka uu galo oo wixii electronicski iyo siday u move gareeyaan wixii asaga ma taaban karo ma arki karo laakiin waxaa laga yaabaa inuu isticmaalo equipments u sheegayo voltageka wuxuu yahay korontiga maraya meesha wuxuu yahay signalka siduu u galay waxaasoo dhan ayuu ku mashquulsan yahay oo yacni laabka markuu tagana waxaas ayuu sameynaya laakiin qofka mechanicalka barto wixii uu design gareeya waa inuu taabtaa ama uu feel gareeya marka intaas waa generalka inta ay ku kala duwan yihiin waxaan rajaynayaa insha allah ina aad ka faa'iidaysateen wixii su-aal ama jawaabana hoos iigu soo qora ama commentisa insha allah waan isku soo try garay inaan idinka jawaabo maca salaama